الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أرنتان dadka dulqaadka badani waa ku wareeraan ragga kuwooda caqliga badana waxay isweydiiyaan maxay yihiin sababihii ay muslimiintu ku gaareen dulqaadka iyo adkaysiga heerkaas gaaray oo sidee bay ugu samreen cadaadisyadaas iyo ciqaabahaas cidii maqashaa qamandhacyoonayso oo qalbiyadu jaraynaya annagoo tixgelinayna arrimahaas isweydiinta leh baa waxay noola muuqatay inaan si kooban oo dulmar ah wax uga tilmaano sababtii u weynayd oo aasaaska iyo xudunta u ahayd waxay ahayd alle rumayn iyo iimaan alle bay keligii aamineen oo aqoonsadeen oo rumayn sugan rumeeyeen iimaanka runta ahi markii uu qalbiga ku dhaco culays buureed buu yeelanayaa oo cidina ma liiliijin karto qofka iimaankaas sugani qalbigiisa galo oo yaqiinta helaa dhibaatada adduunku inkastoo ay la-eg tahay iyo halis kastoo ay tahay waxay ula muuqataa markii iimaankiisa xoogga leh loo eego sidii caws yar oo biyo daad ah dul sabaynaya oo doonaya inuu dumiyo derbi adag oo shub ah markaasaanu dan ka gelayn oo dareemayn inta uu macaanka iimaanka qalbigiisa ku jiro sababtaas aasaaska ah waxaa feer socday sababo kale oo samirka iyo dulqaadka xoojinayay rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa hogaamiyihii u sarreeyay ee ummadda muslimiinta ah iyo weliba aadanaha oo dhan wuxuu lahaa dabeecado wanaagsan iyo abuur dhammaystiran oo isu dheelitiran dhaqankiisa samina naftooda qaaliga ah bay dartiis u huri jireen nebigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu lahaa sharaf iyo maamuus midda ugu sarraysa dhowrsoonida iyo aaminnimada runta iyo sifaalaha khayrka wuxuu ku ahaa caan aan cidina kula tartami karin gacal iyo cadowna waa u wada qirayay oo markhaati bay uga ahaayeen maxaa yeelay 40 sano ee nebinimada ka horeysay buu waxaas oo dhan ku caanbaxay wuxuuna ahaa naf alle dhowrayay oo waxsan ku abyayay wuxuuna ka ilaalinayay kelmad kasta oo afkiisa ka soo baxdana inay run tahay bay hubeen waxaa isu yimid 3 nin oo Quraysh ah oo mid walba si qarsoodi ah quraanka u soo dhageystay markaasay sirtii isu sheegeen saamidkood baa Abu Jahal oo 3 isna kamid ahaa weydiiyay muxuu kula yahay waxa aad Muhammad ka soo maqashay wuxuu yiri maxaan soo maqlaa annaga iyo reer Cabdi Manaaf baa sharafta ku tartanay waxbay sooreen saa waxbaan soornay waxbay qaadeen saa waxbaan qaadnay waxbay bixiyeen saa waxbaan bixinay markii aan sinaanay bay yiraahdeen nabi baa naga mid ah oo waxyigu samada uga yimaado bal goormaantaana gaarayna wallahi baana weligay ka siisanayn oo rumaynayn sa alle baa soo dejiyay subhanahu wa ta'ala maalina gaalada baa 3 jeer duray rasuulka sallallahu alayhi wasallam uuna ka aamusnaa markaas buu markii saddexaad ku yiri kulanka Quraysheedow gowrac baan idin keenay markaas bay kelmadaasu meel uga dhacday oo kuwoodii ugu daraa ku dhaqaaqeen maslixida rasuulka sallallahu alayhi wasallam markii rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo sujuudsan mandheerta dusha uga rideen oo uu habaarayna qosolkii waa ka ba'ay oo waxa alle ku tuuray walwal iyo walaac waxayna garowsadeen inay halaagsamayaan Utba bin Abi Lahab buu habaaray waana uu hubay inuu la kulmayo waxa rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu ku habaaray markii uu libaaxi cuni lahaa arkayna wuxuu yiri wallahi Muhammad isagoo maka jooga buu idilay Umayya wuxuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam ugu hanjabi jiray inuu dilayo markaas buu nabigu sallallahu alayhi wasallam yiri maya aniga baa ku dili doona hadii alle idmo markii uu rasuulku sallallahu alayhi wasallam Umayya qoorta ka duray maalintii Uhud oo xagtin aan si fogeyn ka gaarsiiyay Umayya waxa afkiisa laga waayay waxaan ahayn war maka anigoo jooga buu igu yiri waa ku dili doona wallahi hadii uu candhuufo igu tufana waa idili lahaa Sa'ad bin Mu'adna wuxuu isagoo maka jooga Umayya bin Khalaf ku yiri waxaan maqlay rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo sheegaya inay muslimiintu ku dili doonaan markaas buu si daran u naxay oo go'aansaday inuusan maka ka bixin markii Abu Jahal maalintii Badar baxayay ku jujuubayna wuxuu gatay rati dheereeya si uu ugu cararo waxay afadiisu ku tiri Abu Safwanow ma ilowday wixii saaxiibkaagii reer Madiina ahaa ku sheegay wuxuu yiri maya
wallahi baanan rabin inaan la baxo Quraysh, waana ka soo laaban doonaa markii aan xoogaa socono. cadowyadiisu sidaas bay u arkayeen nabiga sallallahu alayhi wasallam, waxayna sidaas u wada aaminsanaayeen inuu wax walba run ka sheegayo, uuna yahay nin karaamo leh oo ducadiisa alla ajiibo. sidaasayna sir iyo saaqba uga baqayeen oo uga haybaysanayeen. asxaabtiisuna indhahooda waa ka jeclaayeen oo qalbiyadooda iyo ruuxdooda buu hantay. waxayna u hayeen kalgacalo dhab ah oo waxay uga soo burqanayeen sida biyuhu meesha hooseysa uga soo dilaamaan, wuxuuna u soo jiidanayay sida magnadku birta u soo jiito. suuradiisu waa jasad kasta asalkiisa iyo magnadka laabaha. jeclaantaas dhabta ahi waxay ka muuqatay falalka iyo orahaha asxaabta nabiga sallallahu alayhi wasallam, waxayna fagaarayaal kala duwan ka muujiyeen inaysan marna raalli ka noqon karin in rasuulkooda xagtini gaarto ama qodaxi muddo, ayna taas ka doorbidayaan in iyaga luqmaha laga jaro oo ay dhintaan intii rasuulka sallallahu alayhi wasallam ay dhib yari gaari lahayd. maalin baa abubakar as-sadiiq gaaladu garaacday oo ku tumatay oo si xun u garaaceen, waxaana inta laba kabood isku dhejiyey wejiga si xun ugala dhacay cutba bin rabiica, waxaana abubakar gurigiisa loo qaaday isagoo aan wejigiisa la garanayn oo geeri qarka u saaran. jilibkiisa oo reer tiim la oran jiray baana go' ku waldaamiyey oo gurigiisa geeyey iyagoo aan rajo nololeed ka qabin. gelinkii dambe buu hadlay oo yiri rasuulkii alle muxuu falay, yacni sidee yahay nebigii alle. markaasay hiifeen oo inta kaceen bay isaga tageen. inta hooyadii umulkhayr ku yiraahdeen bal fiiri oo biyo iyo baad waxaad siin kartid sii, markii ay ku keliyeysatay bayna isku dayday inay wax ku dirqiso oo wax siiso. isna wuxuu dayn waayey sidee falay rasuulkii alle sallallahu alayhi wasallam. markaasay tiri wallahi baana saaxiibkaaga waxba ka ogeyn. markaasuu yiri waxaad u tagtaa oo soo weydiisaa umu jamiila bintul khadaab. markaasay umu jamiila u tagtay oo tiri abubakar wuxuu ku weydiinayaa muxamed bin cabdillah. markaasay tiri garan maayo abubakar iyo muxamed bin cabdillah toona. haddiise aad rabtid inaan wiilkaaga kuu raaco waa kuu raacayaa. markaas bay tiri waa rabaa. markaas bay israaceen. markaas bay u tagtay abubakar oo lagdoon oo bestis ah. markaas bay umu jamiila u dhowaatay oo inta kor u qaylisay bay hoos u tiri wallahi dadka sidaan kuu galay waa faasiqiin gaala ah, waxaana alle ka rajaynayaa inuu kaaga aargudo. markaas buu yiri rasuulkii alle sallallahu alayhi wasallam sidee yahay. markaas bay tiri waatan hooyadaa ina maqlaysa. wuxuu yiri waxba kaaga iman maayaan. waxay tiri waa nabad qabaa oo ladan yahay rasuulkii alle sallallahu alayhi wasallam. wuxuu yiri xagee buu joogaa. waxay tiri daarta ibnul arqam. wuxuu yiri alle wuxuu igu og yahay inaanan cunto iyo cabitoona dhadhamin jeer aan rasuulkii alle u tago sallallahu alayhi wasallam. markaasay u kaadiyeen intii ay cagtu ka degaysay oo dadku ka kala xasilayay, dabadeedna tukubiyeen oo rasuulkii alle sallallahu alayhi wasallam u geeyeen. kalgacaladaas dhifka ah iyo naf isu huridda xadaafka ah meelo badan baan ku arki doonaa, sida maalintii uxud, sidii uu falay khubayb, iyo meelo badan oo inoo iman doona. asxaabtu waxay si buuxda u dareemayeen inay aadanaha mas-uuliyad dusha ka saaran tahay, aana sina looga carari karin. mas-uuliyaddaas ayna dhibaatada ka dhalanaysa xilka laga cararo ay ka daran tahay cadaadiska, ciqaabta, halista, khasaarada iyaga iyo aadanaha kaleba ka soo gaari doona. xilka cararkuna aysan ahayn wax loo dhigi karo oo lagu qiyaasi karo rafaadka iyo dhibaatada ku soo waajahaya xil qaadida. walaalayaal, darsigeeni maanta halka ayuu inoo joogayaa. inta aynu darsigan darsi lamida isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa ammaano Allah insha Allah.